bulshada ku dhaqan deegaanka dabadilaac ee ka tirsan gobolka Salalo oo si wada jira shir jaraa'id ugu qabtay deegaankaasi ayaa waxay cabasho ballaadhan ka muujiyeen maamulka gobolka Salalo. Cabashada bulshadan ku dhaqan deegaanada dabadilaac iyo wada jira ayaa muddooyinkii dambe iyadoo ahayd mid iska soo daba dhacaysa, taasoo ilaa imika ayna jawaab ka bixin maamulka gobolka Salalo ee iyagu ka qabaan cabashadani. Bulshada ku dhaqan deegaanka dabadilaac ee gobolka Salalo ayaa waxay sheegeen in maamulka gobolka Salalo uu ka horjoogsaday gargaar ay siinayeen hay'adaha iyagu macaawinada gaarsiiya bulshada ku dhaqan deegaanada kala duwan ee gobolka Salalo, taas oo ay uga sabab dhigeen in maamulka gobolka Salalo uu ku khasbayo inay la kulmaan oo ay deegaanadooda yimaadaan dad uu hore deegaankaasi uu dagaal ugu dhex maray oo ay bulshadani ay dad kaga dhinteen, waa siday hadalka u dhigeen. Haddaba waxgaradka iyo haweenka deegaankaasi oo hadalka iska daba qaatay ayaa wax hadaladoodii ka mid ahaa. waxaan halkani kaga hadlaynaa mowqifka magaalada dabadilaac iyo dhibta gaarka ee haysata hay'adaha islaamiga ee noo yimaada ee maxay taakulaynta noogu yimaadana. waxa la yiri dadkiina laayay oo la heshiisaan mooyaane waxaad qaadan kartaan ma jirto. dadkaasi una laayay uu naga tagay annaka meel uu jooga ma garanayna annaka iyaga yaqaanada malaalkay joogaan على صبيح يا عصامة يا بيتين dadka iyaga laayana dhibta ugu weyn halka ka socotana waxa ka aaba maayirka xildhibaanadiisa farasaabka cid kale looma raacayo. walana laayaa annakoo kuwii horeba la laayay dadkiina laayay lama soo qabto oo dadkii kuwa hore laayay ما هذا القاسم من أسكله ومن ترونا كتن نبى سوق شهابين غير سكيا لو حولي شيء يستي عيدا كنا واقي علي ناقل دحي دقيقة كده غير كي كتا كينن دوي أنا ومن نولان همين كي دنا ومن نولين وي من دبر صاحب كي ما يركوا الله حكى قبتين لما أرجع ووضع داو حوله دي ويركين رقدوده بدي جرب لقود دلي غير كاسالكي أو نكي هره لقود دلي بوليس كم مرقة ثليها غاز غير صاد بكم مرقة وحلا قبت مجتي أنا كي كوجر منينا حصاد دون ثانو بالي سكتا كماش لأن كمر دكروبيني أنا كادكروني ملاها هنا سيدات هاي وحي نيجو علامة في maamulkii dhulka ka jiray ee dawladii waa tan leh bariis ma qaadanaysiin ilaa aad nimankii in laayay dabadilaac keentiin bariis laynima siinayo. waa marag madoon waan gaarsiinay qaylada meel kasta. hay'ad baa noogu timiday toddobaadkan ka hor halkan ilaahay keenay oo kuwa dadka u taakuleynaya 98 qof bay qoreen oo iyagu gacantooda ku qoreen way sawireen 3 bilood oo lacag ayaan iniisoo diraynaa bay yiraahdeen saadkiina way qorteen dadka lambaradii wixii aan simikaar bay siiyeen ciisu bursi wixii joogay halka markaa cid ba looma dir sheegin way qorteen iyaga gacantooda ku qortay. xilligii lacagtii ay soo dirnin gaadhay hay'adii waxay tiri ninka bada saabka iyo maayirka iyo joojiyeena yiri lacagti xal la gala nimanka bay nagu yiraahdeen. concert baa la yiraahdaa hay'adaas waa hay'ad caalamiya mar horena waxna siin jirtay iminkana wixii ay noqortay nimanka baa hor joogay shirar bay caalami iyo iminka qabanayaan baa la yiri oo maxay hayday ayagu ka mas'uuliyiin annagu kama qayb galayna shirkaas. aniga oo ku hadlaya afkii beelaha buurta ka soo jeeda fadhixun dabadilaac fiqiyada sheekhawaare ayadoo ka midaysanay afkaas kama qayb gali doono shirka ay qabanayaan nimanka cunahan qabtay. waa go'aan taasi aan ku gaadhnay beelaha bahabar celi ee ka soo jeeda buurta hoosteeda ilaa cuna qabantaynta la naga qaado
ilaa ragga iyaga xidhxidhan ee geedaha jeelashiina loo diiday geedaha muxuu ahaayey askartu ay joogta oodaha ku oodan ee lagu xereeyey ee kii hadlaba la qaadayo ilaa lanaga dulqaado wax shir oon ka qayb galaynaa ma jirto. wax weli adduunyada ka dhacay maaha nin dhagaroobay oo ninkii uu ka dhagaroobay la leeyahay sooho u gogol xaaj ogolow waa noo kow. waxa garanaya arrinkaa ummadda islaamka iyo dawladda Soomaaliland iyo dee ka warbixin doonta ninka sidaasa ee dhibanaha ah ee waxaana lagu samaynayo iyo dee ka warbixin doonta. heer waxa la gaaray ilaa cunaqabataynta sida la noo saaray heshiis iyo ninkiina dilay oo u gogollo haddaad u gogli weydiin ilaa abiidkii mayna saaran tahay ayaa la noo gaaray waa loogu hanjabayba. waxa weeyaan dawladda madaxda sare Muuse Biixi Cabdiraxmaan Saydici iyo inta kale ku xigtaba ha naga qabato dhibta golaha hoose ee saylac naga socota sida ay sheegayaan odayada beeshu ayaan anaguna ku raacsanahay. waxa weeyaan sida ay horeba iniigu soo sheegeen annaga cunaqabatayn baan haysata 5 beelood ee la inii sheegay inta ay ka koobanta. waxaan doonaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo maamulka Soomaaliland in la naga dulqaado dhibtan haysata. anan waxaan u geysanina ayna jirin intoo la nalaayay halkii la nagaga tag. waxa weeyaan ilaahay ayaan weydiisanay kuwaana dhibaateeyay ee dhibta maxaan ku raahdaayay nagu haya ilaahay inuu naga qabto. Sakariya Cabdi Shafaar Sakariya Saxane deegaanka Dabadilaac ee gobolka Sanaag.